السلام عليكم سو dhawaada asxaabta ku xiran channelka EKSOM kuna soo dhawaada muuqaal xiiso badan balse inta aynan bilaabin muuqaalkeena fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe iyo gambalelkana furo Adar Yusuf Ibrahim gabadha guntiinada xiran ee xanatay taajka quruxda jaamacadaha Afrika Adar Yusuf oo ah gabar Soomaali ah ayaa ku guuleystay taajka quruxda ee tartanka Miss University Africa kaas oo ah mid ay ku noolamayeen gabdhaha jaamacadaha qaaradda waa markii ugu horeysay ee ay gabar hijaaban noqoto boqorada quruxda jaamacadaha Afrika sida lagu sheegay bogaga baraha bulshada ee hay'adda tartanka qabatay diyaar garow ayaa socday tan iyo horaantii bishan December xilligaas oo ay gabdhaha loolanka ka qayb qaadanaya ay ku gulgulayeen Nigeria Adar ayaa ku guuleysatay tartameedyaal gaaraya 61 oo isugu tagay magaalada Abuja ee wadanka Nigeria oo ah meesha uu tartanka quruxda ka dhacay galankii dambe maalintii Sabtida oo ay taariikhdu ku beegneyd 18 December 2021 waxay ahayd markii labaad oo ay Adar Yusuf ka qayb gasho tartanka ay hadda tajkiisa ku guuleysatay waxaana baraha bulshada si weyn ugu hadalhayaa Soomaalida sida ay wararku sheegayaan Adar ayaa la guddoonsiiyay abaalmarin lacageed oo dhan $5,000 oo ah qiimaha kaalinta koowaad hadalhaynta ugu weyn waxay ka dhalatay Adar oo tartanka uga qayb gashay iyadoo hijaaban oo hiran dhar aan jirkeeda muujinayn iyo khamaar ay madaxa ku xiratay muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ee hay'adda Miss University Africa ayaa lagu arkayay iyada oo farxad weyn ka muuqato markii lagu dhawaaqay in ay ku guuleysatay taajka gabdhihii kale ee la tartamayay ku hoomay iyagoo u hambaleynaya farxadna u muujinaya sida laga arki karo muuqaalka sanadkii 2010 ayaa markii ugu horeysay la qabtay tartankan si ka duwan tartamada kale qasab ma aha in gabdhaha ay yartaan dhar jirkooda laga arki karo ama xadidan